السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي soo dhawaada cashirku noo socon doonaa. Maanta waxaan qaadan doonaa cashir ku saabsan romance, marriage and divorce. Waa wada sheekaysiga iyo guurka iyo wada isfuritaanka. Marka waxaan noogu horeysiinaa sentence, waxaan halkan kusoo jeedinaynaa sentence ku saabsan ama paragraph ama la oran karo ama essay ku saabsan guurka iyo qofka iyo gabadhaas soo sheekaysanayeen iyo ereyada isticmaalayeen. Marka waxaan ka faa'iideynaa erayo badan iyo sentence sida loo dhiso iyo sida hadalka uu leeyahay soo isku xidhayo kuwaas ka faa'iideysan doona. Marka qaybta romance-ka koowaad ee romance waxaan ku qaadan doonaa siday isku barteen waxaas. Marka koowaad romance waa maxay? Marka sheekadu bilaabay wuxuu yidhi I had my first date when I was 16. Wuxuu leeyahay waxaan yeeshay datekii ugu horreeyay shukaansigii ugu horreeyay markaan 16 jiray. And it was a terrible aad bay u xumeyd buu leeyahay terrible waxa xun bal tilmaamay aad ku xun leeyahay aan soo jiidashada lahayn ama dad ka naxda ama xun la kulanto. It was terrible aad buu xumeyd. I took a girl to the cinema but she didn't like the film. Gabadh baan u kaxeeyay buu leeyahay filimada meesha filimada lagu daawado and she didn't like the film. Ma jeclin filimka. I looked boring all evening waxaan u eegay mid caajisan cawiiskoo dhanba all evening cawiiskoo dhanba wuxuu eegay mid boring oo aan ku faraxsanayn filimka iyo daawashadiisa. It was a bad start waxay ahayd bilow xun bay ahayd. Then when I was 17 markaan 17 ahaa I went out with a girl for 3 months. Gabadh baan la baxaya ama la socday 3 bilood. But we broke up when she met a boy who was 2 years older than me. wuxuu ku leeyahay gabadh baan la socday oo gabadhaan la socday ilaa 3 bilood laakiin waan kala tagnay markaa la kulantay wiil aniga 2 sano iga weyn. Broke up when she met a boy who was 2 years older than me. mid 2 sano aniga iga weyn and had a car gaadhina uu haystay and had a car gaadhina uu haystay. My first serious relationship xidhiidhkaygii ugu horreeyay saacad ahaa si dhab ah wuxuu ahaa was when I went to the university. markaan jaamacadda tegay buu ahaa buu leeyahay markii xidhiidhkaygii ugu horreeyay my first serious relationship was when I went to the university. jaamacadda markaan tegay buu ahaa xidhiidhkaygii dhabta ahaa ama saxda ahaa. jaamacadda markaan tegay baan la kulmay ama markaasuu noqotay buu ka wadaa. I got to know Melanie. waxaan bartay gabadha Melanie la yiraahdo because we were on the same course. waxaan ahay isku kulliyad ama isku jaamacad ama waxaan ahay isku koorso baanu ahayn buu leeyahay. Melanie baan bartay because of that we were on the same course. waxaan ahay koorso isku mid ah. At first we were just friends. marka hore just asxaab baanu ahayn saaxiib baanu ahayn marka hore. And then we started going out with each other. dibna waxaan bilownay inaan isla baxno oo israacno oo wax soo cunno oo dibna isku raacno oo sheekaysano baanu bilownay. And after few months we realized we were in love. bilayar ka bacdi waxaan aqoonsanay ama waxaan yaqiinsanay we were in love inaan isjecel lahay. we were in love inaan isjecel lahay ayaanu ogaanay. We got engaged a couple of years. waxaan wada soconay man wada jirnay dhowr sano. After we left university and then intaa ka bacdi jaamacaddii baanu ka baxnay ama jaamacadda baanu dhammaynay buu leeyahay. marka hal mar haddaan soo dulmaro waxa weeye I had my first date when I was 16 and it was terrible. I took a girl to the cinema but she didn't like the film and I looked poor all evening. It was a bad start. Then when I was 17, I went out with a girl for 3 months, but we broke up when she met a boy who was 2 years older than me and had a car. My first serious relationship was when I went to the university. I got to know Melanie because we were on the same course. At first, we were just friends. Then we started going out with each other. After a few months, we realized we were in love. We got engaged a couple of years after when we left university.